taageerayaashayda aad baan idiin salaamayaa aad baan uga xumahay caawa dibadhaca yare inagu dhacay taageerayaashayda aad baan idiin salaamayaa aad baan uga xumahay caawa dibadhaca yare inagu dhacay xubno ka mid ah dhallinyaradii barnaamijka shaqo qaran oo uu weheliyo gudoomiye ku-xigeenka gobolka Maroodi Jeex Khadar Baaruud ayaa shir jiraayad ay ku qabteen caasimadda Hargeysa waxa ay ugu baaqeen dhallinyarada barnaamijka shaqo qaran iyo bulshadeynta ku dhaqan caasimadda Hargeysa inay ka soo qayb qaataan munaasabad soo dhaweyn oo loo sameyn doono fanaanka caanka ah Maxamed Siciid Cabdi Biike oo socdaal ku jooga magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya halkaas oo uu tagay inuu ku dhigo bandhig faneedyo balse ay carqaladeeyeen qaar ka xun dal jacaylnimada fankiisa uu ku muujiyo iyo qaran jacayl uu ku soo bandhigay heesaha kala duwan ee uu fanaankaasi qaado halkan maanta waxaanu ka soo jeedinaynaa iclaam aanu iclaamino haddii aanu nahay dhallinyarada shaqo qaran in maxay tahay Maxamed Siciid Biike oo ah fanaan qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland meel culis kaga yaala fanaaniinta runtii qaranka ay ku faantana maxay tahay kamida waxaynu ognahay in xukuumadda Soomaaliya iyo dad ay bahwadaag leeyihiin ay u maleegeen inay ay gaarsiiyaan heel ay ugu hanjabaan ama dil loogu hanjabo isagoo ku sugan Kenya isla markaana waxa kaliya ee waxaasoo colaada keenay ama loogu hanjabay ama waxaasoo dhiba loogu geysanayana ay tahay sababta ama maxay ahaytoy ama maqaamka uu ka taagan yahay qarankeena iyo sida 24 saac uu ugu heelan yahay gooni istaageena iyo jiritaankeenna annagoo markaa dhallinyaradii shaqo qaran ahaan iyo dhallinyaradii maxay ahaytoy Soomaaliland oo dhan insha Allah waxaan jecelahay inaanu beritoole si mug iyo miisaan la ugu soo dhaweyno stadiumka Hargeysa insha Allah hadii Ilaahay ogolaado markaa waxaan ugu baaqlaa dhallinyarada shaqo qaran meel walba ay joogto insha Allah in beritoole ilaa 4 iyo rubuc meelaha la iskugu yimaado stadiumka marka waxa ummadda Soomaaliland meel kasta joogto waxaan ugu baaqayaa in la garab istaago oo si qalbi furan oo niyadsan lagu soo dhaweeyo fanaanka Maxamed Siciid Biike calayahow ha dhicin ha dheeliin weligaa dhisnow marka nationalismku runtii waa qariisad ama wax ku beeran qofka bani aadanka inuu dalkiisa ilaashado inuu dalkiisa difaacdo idinkana waaba la idinku tabcayo dhallinyarada shaqo qaran baa tihiin role model baad u tihiin dhammaan dhallinyarada reer Somaliland aad role model u tihiin inaad calankiina iyo qarankiina ilaashataana runtii waa waajib haddaad tidhaahdeen dhalinyar ahaan waanu soo dhaweynaynaa fanaanka qaran ee lagula ciloobay jacaylkiisa uu qabo calankiisa iyo dalkiisa uu qabo runtii aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin